السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. habeen wanaagsan, Ramadaan Kariim, Ramadaan Mubaarak. Muslimku meel kastay joogaanba dhammaantood nin kasta meelka uu jooga Ilaahay ha ku asturo. Ramadaanka khayr iyo caafimaad baan u baryayaa. Maanta ninkii maaragtay ninkii Cirro wuxuu qaabilay maaragtay burcad dhaqankii reer Boorama ee qadaraas ku qaatay inaa ubadkooga la laayo ee maaragtay iyo iskugu yeedhay uu maanta saambuusihii u waxeeyey. kolkaa waxaad malqi jirteen burcad badeed baa malqi jirteen. maanta maarta kelmaddan iga qora. waxaa jirta burcad dhaqan baa jirta. anigaa magacaa saaray. nin kastoo dhaqana oo burcad dhaqan waa inaan ku magacowdiin oo maanta ugu horeyso dadkii qandaraaska qaatay uu horey u qaabilay uu qandaraaskii lacagtii uu ka soo qaatay imaaraadka uu siiyey uu master deeg ugu horeeyo. dhaqan burcadka deeg ugu horeeyo. odayaashii uu horey u qaabilay ayuu maanta qaabilay. war baa la isa siinayaa. qaabilaadda uu qaabilay dabadeed waxa ka soo baxa ayaan dhagaha u taagaynaa. burcad dhaqan baa jirta soomaalida ku jirta oo waa kuwa ubadkoogii dhul haylahayn ku laayey ee beenta maaragtay dabka ku guray. dadkaa dhintoo dhan burcad dhaqankaa baa la weydiin doonaa ee ka dhintay dhinacooga ka dhintay iyo dhinaca kaleba ka dhintay. ilaahay wuxuu weydiinayaa dhul haylahayn burcadka dhaqankee ku soo duulay. kolka qof maaragtay ugaasa oo sharaf leh waxaa lagu gartaa madaxweynayaasha ayuu ka sharaf badan yahay. ugaas mustafe wuxuu uga sharaf badan yahay meel loogu tego oo dadka soomaaliyeed hay ku booqdaan. qasri buu galaa meel kastuu tegaba. ilaahay baa karaamadda siiyey annagu ma siin. burcad dhaqanna ma siin ee waa wax rabbi bixiyo. kolkaa maanta odayaasha ka soo jeeda ee dhaqanka jiif aqlada iyo aqlada waxaan ka codsanayaa inay maaragtay u tegin sharaftooda inay ilaaliyaan. kii u tega ayaa u tego laakiin dhaqanka aqlada jiif aqlada ka soo jeeda gobolka zaylac iyo salal inayna u tegin. uu sharaf beelay cabdiraxmaan Cirro. dadka uu maanta qaabilay waa burcad dhaqan baa leedhaa. kelmadda anigaa bixiyey waa in la isticmaalo. waa bil Ramadaan. nin kasta oo dhaqana oo koofiyadda uu sito iyo cimaamadda uu sito dad uu ku dhibaataynayo koofiyadda iyo cimaamaddiisu waa burcad dhaqan baa leedhaa. kolkaa insha allah dhulkan aan joogno koofiyadda iyo cimaamadda la sito waa sharaf oo wax lagu dhibaateeya ma jirto. meesha rag baa iska ilaalshanaya waa Yurub. raggii lahaa baa iska ilaalshanaya oo maaragtay laakiin odayaasha uu qaabilay dadkay dhaqan u yihiin baa ba'ay. ku qabsa ku qadimayside waa dadkii maaragtay tiktokerada ka dambeeyey ee qandaraaska soo qaatay ee lacagteer uu ka soo qaaday imaaraadka uu qaybiyey. burcad dhaqan buu maanta qaabilay Cirro. aniga intaaba inogeysiinaya intaabaan u soo galay. kelmaddaana anigaa saaray. ha la helo ha samaato. qof kasta oo dhaqanka burcad maaragtay burcad ku aba waa burcad dhaqan. burcad badeed baa malqi jirteen. maanta laga bilaabaa burcad dhaqan baa jirta oo odayaasha baa ugu horeeya. burcad dhaqanka Boorama isgaarsiiya videogayga meel kasta gaarsiiya. saambuusi buu qaybiyey wararkiina waa la kala qaadanayaa. kolkaa wakaa burcad dhaqan magacaa maantuu baxay mana soo noqonayo. qof kasta oo dhaqanka burcad ku aba waa burcad dhaqan. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. wax la waayey weydow ninkii waalan baa u dida. qaabilaadda maanta uu qaabilay waxa ka yimaada dabadeed baan eegaynaa. wixii hore qandaraaskii la kala qaatay way u socon weyday. meesha rag inay joogaan ay ilaashanaya war uma hayn laakiin dhirbaaxa ku dhacday. isagaana u diray oo ka dambeeyey isagiyo madaxweyne ku-xigeenkiisa. wakaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waan ugu ducaynay burcad dhaqan odayaasha reer Boorama.